waa labadii subaxnimo iyo jidka dheer ee jaalisiyaad iyo warshada caanaha u dhexeeya. labada dhinac ee laamiguna waxay u furan yihiin inay isku rid dhaafaan baabuurtu. gaadiidka aan saaraynahaydna sabab la hubo ayuu ku marayaa laamiga, laakiin alaaba saadaashu ma sahlanayn. waxaa jirtay waqti uu teleefon iska soo hormari jiray si uu u ogaado haddii uu cariiri jiro iyo in kale, balse muddo laga joogo hal bil, safar u muuqda mid aan daah iyo dibudhac lahayn ayay shacabku ku maraan waddadan oo halbowlo u ah qayb ahaan gaadiidka soo gala caasimadda iyo kuwa ka baxa. xasuustuna waxay ku harsan tahay maskaxda kuwa yaqiin siduu xaalku ahaa marka ay halkan kusoo aadi jireen hubaal la-aanta, marka ay gaadiidku madax isla geli jireen iyagoo isku ciriirinaya hal dhinac oo jidka ah. goor ay adkeed in qofku doorasho aan iyada ahayn uu heli karo, sidaa awgeed ay huriweyto u soo aadi jireen nuuc walba oo gaadiidka ah. waa waqtiga habeen iyo dharaar ciriiriga ka dhasha lagu dhex yirnaa jiray in ka badan 2 saacadood oo xiriir ah. amiin socotada isugu jirta bugtada, ballanlahilaha iyo danleyda kale ee ardayda iyo hoyooyinka ka mid ay ku qasbanaa jireen inay lugta maalaan intay isaga soo degaan gaadiidka ay saaran yihiin. cid dheg jalaq u siisana cabashadooda aysan jirin. tan iyo markaas in ka badan 5 barnaamij ayaanu ka sameynay si tabashada iyo baahida shacabku ku qabaan furitaankeeda loola kulmo. ugu dambeyntii muuqaalkani wuxuu jawaab u yahay sugaalkii dheeraa ee loo galay ka jawaabista baahidaas. mar walba oo subax saaka la mid ah ay shacabku gaadiidka ay saaran yihiin buuq iyo ciriir la-aan ku maraan, waxaa kasii dhammaanaya maalmihii qaraaraa gocashadooda, waxayna keliya ka fekerayaan howlaha horyaalla qabashadooda. inta ay la ekaan doonto furnaanshaha labada dhinac ee laamigan ayaan caddayn, balse ugu yaraan safar midkii shalay lagu iloobi karo ayaan ku jirnaa aniga iyo rakaabka ila midka ah. mahadna waxaynu celinaynaa eebbe ka sikow cid walba oo kaalin muuqata ku laheyd.